بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan gelaynaa jabtarkeeni labaad ee maadada quantity surveying ama cost estimation. jabtarkani koowaad wuxuu ahaa introduction to quantity surveying. jabtarkeena xigo wuxuu noogu saabsan yahay waxa loo yaqaano formulation work. darsiga aan maanta qaadanayna ee darsiga koowaadna waxa waaye isolated footing ayaan soo saarayna. waxaan isticmaali doonaa laba software, AutoCAD and Excel sheet ama spreadsheet waxa loo yaqaano. waa loo software gooni loo barto. AutoCAD-ka waxaa loo isticmaalaa design-ka waliba planada in lagu sameeyo ayaa loo isticmaalaa iyo sectionska iyo 3D-ga waa lagu sameyn karaa. marka waxaan ka darsigana maanta uu ku saabsan yahay isolated footing how many meter cubic ayaa looga baahan yahay in la qodo. shaqada ugu horeyso ee dhismaha laga qabto waxa weeye markii laga soo tago site clearance waxa weeye in godadka la qodo. marka cagtan hoose imise god ayaa la qodayaa. godkan la qodaayo dhammaantood meter cubic ayaa la qodayaa ayaan soo saarnay 90 meter cubic ee loo baahan yahay in la qodo. marka waxaan rajeynayaa inaad ila socon doontiin. noo soo fur Excel sheet-keena aan soo furo. noo saa marka aad soo furatid waxaad u baahan tahay inaad table qurux badan aad samaysid saa u samaysid BOQ-daada. marge dheh saad saleska isaga dhalad galayso waxaa leedahay company name. company name adiga company-gaada magaciisa oo la bax. aniga waxaan iska leeyahay horseed. okay andara waxaa u baahan tahay inaad qortid consultant. cidda arabta ka dhigo. anigoo Mustafa ayaan ku qorayaa hagaag. okay table-keena markaas u quruxsano aan samayno marka daatada nalooga baahan yahay si aan usoo saarno isolated footing. inta waxaan leeyahay serial number. serial number then waxaan leenahay description. description waxa waaye specification-kii aan darsiga koowaad kusoo sharxaynay waaye. waxaan filayaa inaad fahamteen. description waxaa noogu xigay marka number yani imise cag ayaan sameynaynaa waaye ama footing-ka inta tiro uu yahay. waxaa ku xigay marka length, kuxiga breadth, waxaa loo yaqaano breadth, waxaa ku xiga depth. marka sorry length waxaa unitkeeda uu yahay aan ku cabiraynaa meter. yes m. sidoo kale breadth-kina isagana waxaan ku sameynaynaa meter. okay ka soco waxaa ku xigo waxaa loo yaqaano isagana depth. isagana waxaa waaye meter. hoosoo ku xir. waxaan kaloo u baahannahay quantity. saddexdooda waa la isku dhuftay. ayada waxaa waaye marka meter cubic markaad soo saaraysid cagta hoose inta la qodayo yani waxaad ku saaraysaa meter cubic. meter cubic ayaa la qodayaa cagta ayaan sameynaynaa. marka m ayaad leedahay ama small m ba dheh. saad marka meter cubic-ga tirada yartaa u saartay waxaa leedahay insert. aniga Excel kama idin barayo laakiin waxaan isku dayaa qaacidooyinka iyo symbols-ka isticmaalaya inaan idin tuso. marka haddii problem ay kugu qabato waa ila soo xiriiri kartaa. insert dheh then cancel dheh. marka saas kugu fushay then waxaa waaye waa ka soconaysaa. waxaa kaloo sameynaa total quantity. total quantity quantity ayadana waxaa waaye meter cubic m dheh then insert sample inta ku dhufo. marka insert dheh then close the bracket then final column ka u baahan waxaa waaye remarks haddii mataqaana ay ku soo baxdo remarks ayaa kugu xigo. okay intaa marka waxaa waaye daatada aan ku shaqeynayno si aan usoo saarno isolated footing. Excel-ka marka waxaan isku dayaa intaan sharxi karo inaan sharxo. adigase waxaa waaye waxaad u baahan tahay haddii aan aqoonin inaad soo baratid. waxaan sameynayaa marka si waxaan isla kiiji jiraan hal mar aan u wada saaro double click. yani intii mid kasta aan dhihi lahaa click aan dhihi lahaa hal mar ayaad highlight saaraysaa column-yada dhan then waxaad double click aad ku siinaysaa mid ka mid ah dushiisa. okay
weli tablekayga ma quruxsano waxaan sameynayaa inaan highlight gareeyo waxaan dhihi jiray okay waxaan sameynayaa kow horta inaan tan aan halkaan u yara dhigo margeka ka qaad Alexander halkaas iga ka dan marge okay marka waxaan sameynayaa inaan quruxsado tablekayga waxaan sameynaysaa inta imaanaysaa format cell border u sameynaysaa border u samee waxaad dhahdaa outlines then click dheh marka outlinekii waan sameynay then waxaa noo xigo inaan weli haddana aan sii qurxino format cell aan tagno waxaa loo yaqaana ka aan doorano inside waxaa leh outlines iyo inside border lineska inside-ka inaan qurxino okay now our table have waxaan ku laabanayaa inaan borderkii aan sameeyo waxaa waaye inside-ka ayaa iga qaribay inta imo ka dooro then outside no not inside outline out okay sorry format cell marka koowaad ka dooro bal waxaa dhahdaa inside then okay saan soo maaha okay borderkina waa noo samaysan yahay outline-ka okay marka waxaan u baahanahay tan inaan midab gooni aan saaro maadaama daatadii ciwaanadeeda ay tahay and also meesha aan kusoo qorayo rowga ugu hooseeyo inaan isagana aan maxaa la jiray aan midab color gooni aan siiyo hagaag haddaba marka stereo number 1 dheh inta imo description-kina maxaa waaye excavation F1 yes excavation F1 waxaan ka shaqeynaynaa waa F1 kaas markaad u qeexdo description aad ugu samayso waxaa leedahay excavation F1 ma fahantaa adeer waxaa leedahay excavation F1 no F1 okay number meeqa xabo waaye let us count aan tirino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 xabo waaye 13 cagood ayaa gelayso aan ku qorno marka 13 cagood 13 kan saanide 13 length-ga meequuha hore usoo sheegay waxaa waaye 1.3 right 1.3 square breadth-kana waxaa waaye 1.3 yes ma fahantaade 1.3 waaye okay depth-ga meequuha ama height-ka aan tirino section-kan ka ogaanaynaa waa kana 15 millimeter oo blind-ka ah isolated footing-ka oo ah 400 oo centi iyo waxaa loo yaqaano 30 centi oo ah neck column-ka marka intaas ku soo dar calculator-ka la soo bax waxaa waaye 150 oo lagu daray 400 oo lagu daray 300 intaas ma loo qeybiyay marka 1000 si yani aan u helno waxaan ku shaqeynaa waxaa waaye I mean sorry waxaa 150 oo blinding-ka ahaa oo lagu daray 400 oo ahaa waxaa loo yaqaano isolated footing-ka oo lagu daray 300 oo ahaa neck column inta markaas ku dartid waxaad u qeybisaa 1000 boqol u qeybi dayta waxaa waaye 0.85 inta marka waxaa leedahay marka 0.85 okay quantity waxaa waaye intaan la isku soo dhuftay yes marka waxaan ku helinaa dhowr qaacida lagu helaa laakiin mid kamid ugu fudud ayaa maraya Excel-ka wuxuu u baahan yahay inaad formatyada ama formulooyinkaas fahanto waxaa leedahay equal waxaa leedahay product oo soo furaysaa intaas ku dhufanaysaa soo jiide soo bilow ilaa iyo then close bracket
waxaana soo baxday inay tahay 18.674 si aad yani u dhigto xaalada ma rabo in waxaas farada badan number dheh يعني decimalka iska yareynaya decimalka iska yareynaya wuxuu noqday 18.67 meter cubic okay marka waxaa laga yaabaa in ay badan yihiin daatadaada oo mataqaanaa f2 iyo f3 ay soo jiraan marka inta waxaa ku samaynaysaa total quantity maxaa equal sum qows baa furaysaa dhammaan inta soo qabo ilaa inta keen mid kasta marka si automatic ah ayuu kugu samaynayaa excelka okay marka waxaa way 18.67 meter cubic ayaa la qodayaa waxa loo yaqaano isolated footing. Hope you understand this section. waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahamteen wixii su'aalood qabto ood fahmi weyday waa soo weydiin kartaa qaybta commentiga igu soo weydii haddaad u baahan tahay wax kaloo caawina insha allah waan joogaa waxaan kaa codsanayaa in YouTube channelkeena aad subscribe saartid si dad badan u gaaro ay uga faa'iidaystaan. Assalaamu calaykum.